Assalaamu calaykum channelka Dirojo walaal fadlan hadaa ku cusub tahay subscribe saar kambalelkan taa si aan free walba cusub aan usoo gelin adoo heshid actor qoraa iyo Sylvester Stallone isla markaana loo yaqaano Rambo waa mid huwan hibo jilin iyo taariikh mudan in laga sheekeeyo waa mid aan dhayr kusoo korin jaranjarada ugu sarreysa actor caana isla markaana hantay abaalmarin dhowr ah wuxuu 6dii July uu ku dhashtay 1946 magaalada dadka ugu daldag badan ee New York isagoona ka dhashay qoys Talyaani ah oo Mareykanka usoo hijrooday 1930kii hooyadiis markay dhalaysay waxay la kulantay khatar waxay dhagaatiirta ku gaadheen qolaan looga dhaliyo wuxuuna qaliinkeena dhaawac u geystay wejiga Sylvester maadaama ay casrigaas adkayd in qaliin la sameeyo Sylvester wuxuu ka mid yahay actarada aadka u da'yar ee berigii hore jiri jiray haddii aan ogaan lahaa buu yidhi wiilkayga inuu noqon doono mid ka mid a dadka ugu caansan adduunka waan sawiri lahaa markii uu yaraa Sylvester markii uu yaraa waxa ka kala tegay labadiisa waalid waxaana la noolaa hooyadiis markii ugu horreysay filimka qayb qaatana wuxuu ahaa 1970kii lacagtii uu filimkaasna ku qaatayna waxay ahayd $200 oo keliya lacagtan uu filimkan waa ogolaaday inuu ku qaato maadaama uu guri la'aan ahaa niyad jab iyo xumaan ay weelisay kadib markii uu gurigii deganaa laga saaray kadib wuxuu seexanayay 3 toddobaad boosad tareen oo ku taala New York wuxuuna sheegay Sylvester inuu hel fursad ay dhex taalay filimka uu ku qaatay $200 khiyaarka iyuuna ku sheegay inuu noqdo tuug kadib Sylvester wuxuu ka soo muuqday filimo badan oo doorar yar ku lahaa wuxuuna bilaabay inuu doorarka waaweyn 1974 isagoona ku bilaabay filimka lagu bilaabay The Lords of the Blackbird kadibna wuxuu sii sheegay filmaan badan aan waxba u tarin wiil dhalinyaro ah oo uu noqdo xidig caan ah oo ku guuleysta maalmo badan wuxuu 1976 wuxuu helay fursad bedeshay noloshiisa isagoo ku sugan ciyaar feera oo dhex maraysay Maxamed Cali Kalay iyo John Wayne fikradaasna waxay ahayd mid diidmada u taagtay taxanaha caanka ah ee Rocky oo filim dunida ku leh saameyn badan gaarayna heer loo bixiyay magacyada baabuur iyo alaabta guryaha iyo dharka carruurta waa filim ku saabsan nolosha nin faqiir ah aan waxba baran laakiin si qalbi wanaagsan jecelna ciyaarta feerka Sylvester markii uu ka soo laabtay ciyaarta feerka wuxuu gurigiisa joogay muddo 3 maalmood ah si uu qoro siduu sheekadan filimkani qofka uu maanta yahay ka dhigi doonta wuxuu isku dayay filimkan inuu gado sheekada filimkan waxaana ka helay shirkadahan soo saara filimada laakiin Sylvester wuxuu watay shardi ah inuu filimka toore ka noqonayo taasina waxa ku diiday filmaanayaal badan taasina uu iska diiday Sylvester inuu noqdo dameer malab saaran oo doonayo in laga dejisto malabka kaliya wuxuu ku adkaystay isaga iyo fikradiisa inay kala hadhin ugu dambeynna waa laga aqbalay inuu filimkiisa ka noqdo actor markuu filimkiisa jirayna 10 abaalmarinood oo Oscar waxaana ka mid ahaa abaalmarinada u tartamay actorka ugu fiican iyo filimka ugu sheekada wanaagsan balse nasiib darro midna kuma goysan wuxuu u soo baxay actorkani mid power leh filimadaas oo kala ah Rocky iyo Rambo taxanayaal badan oo ay ka mid yihiin filimada actionka aana wuxuu kala kulmay u jiray dhaawacyo badan filimka markii uu jiray The Expendables isagoo la dagaalamaya mashaariicda Stephen Anderson wuxuu aabbo u yahay 2 wiil iyo 3 gabdhood wuxuuna guursaday 3 dumar ah waqtiyo kala duwan wuxuuna wajahay nolol adag kolkii uu yaraa balse wuxuu ahaa mid hami iyo himilo fog oo aan si dabarin xaaladii ku sugnaa markaas wuxuu jiraa ka noqday filmo badan waqtigaas waxaana lagu sheegay lacagta uu haysto $400 milyan